boqolaal shacab oo isugu jira culimaadudiin ardayda dugsiyada qur-aanka kariimka haween iyo dhalinyaro ayuu maanta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya mudane xasan cali khayre kala qayb galay dukashada salaad roobdoona oo alla looga baryayay in abaarta iyo dhibaatada dadka Soomaalidu ka dulqaado barxadda weyn ee masjidka isbaaysiga islaamka ee magaalada Muqdisho ayay dadku isugu soo baxeen waxayna dhammaan si isku mid ah looga codsanayeen in roob khayr qaba keeno si looga gudbo abaarta ku dhufatay dalkeena culimaadudiinka Soomaaliyeed ee ka qayb galay dukashada salaada roobdoonta ayaa dadka ku baraarujinayay in la iscaawiyo isla markaana la gargaaro dadka dhibaataysan inay tahay mid alla loogu dhawaanayo ilaahay wuu ina arkaa niyadeennu arkaa war hala toobad keeno hala istighfaarsado si aan roob u helo hala istighfaarsado hala toobad keeno يعني توبة رون على الربا قلب أفكا إنتان كده أستغفر الله عاونا وحي بالله سماي صورة قلبه سومالي دب هذا ما كجرو دب كاسو حال شيء إلى كيني لبعض عن كنا كوكسبني لبعض الناس فور نوع أيام هو كرتا تسبب هو دب قوي كذي كلام لكن تذكر مساكين ده أو أغطى بيرلي ده دب قوي محدود wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabduqaadir Sheekh Cali Ibraahim Baghdadi iyo wasiirka warfaafinta Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay alla u noqdaan isla markaana ay ka qayb qaataan suulinta dulmiga oo sabab u ah dhibaatada haysata dadkeena waa inay nafteenu u baxdaa dulmiga saan u joojino u qabanno isuna kaashano markaas bay ilaahay naajinaya haddaysan taasi dhicinin dhibaatadu sidaan bay noogu soo laalaabanaysaa ilaahayna faraj gacanteenna ku jira samada kama soo dejinayo farajku gacanteennu ku jira amniga iyo raqaha iyo naacawda iyo wanaaggu waa waxaan annagu kasban karno war qofkii maskiinka ahaa oo abaartu haysay oo dhibaatadu haysay biyihii lama gaarsiin karo haddaad shilin u dirtid waxaa laga yaabaa gooyadda u socotayba in la gubo maanta jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhan iyo xataa dhulka kale ee dariskayna la dawladda dariskayna Soomaalidu degto kulligood saameysay in ilaahay laga baryo in dagaalada sokeeye ee 30 sano ka badan Soomaaliya ka holcaya dhiiga daadanaya dhibaatada Soomaalida haysata in ilaahay laga baryo in cudurrada iyo rafaadka iyo khilaafka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali khayre oo wajigiisa ay ka muuqatay qiiro ku saabsan sida uga xun yahay dhibaatada haysata shacabka Soomaaliyeed ayaa tilmaamay in dawladda Soomaaliyeed ay garab taagan tahay shacabka ayna la damqanayso xanuunka ay dareemayaan allana uga baryay inuu dhibka barwaaqo ugu bedelo waxaan idin ballan qaadayaa markaad qorraxda fariisataan inaad idin la fariisan markaad faraxdaan inaad idin la faraxno markaad murugootaan inaad idin la murugoon wax walba oo aad noo sheegtaan oo dalkan u baahan yahay inaan idin dhageysano albaabadan aan idin furno qalbiga adkaysta ilaahay dhibku naga saari doona hadii ilaahay raado ilaahay qalbigeena ha soo dhaweeyo ilaahay dhibka ha naga saaro ilaahay iimaankeena ha sugo ilaahay cadaaladda ha waafajiyo ilaahay dhibkan ummadan dhibaateeyay sanadaad badan ilaahay waan soo jeesanay noo soo jeeso ilaahay waan soo jeesanay noo soo jeeso ilaahay rabbi oo xaq nagu dub ilaahay rabbi isku soo dhaweey ilaahay rabbi oo qabyaaladana baabiisa naga qabo ilaahay rabbi oo adduunyadana wax ka raadinayno noogu bedelina anagu qalbigeena anagu wax iska raadin ilaahay shacabka Soomaaliyeed isku soo dhaweey ilaahay sharafteena noo soo celi ilaahay karaamadeena noo soo celi ilaahu culummadeena barakay ilaahu dhalinyaradeena barakay ilaahu dumarkeena barakay ilaahu madaxdeena anugu horeey xaq waafaji ilaahu xaqna waafaji ilaahu xaqna waafaji ilaahay idin barakay kulliga salaadan roobdoonta oo maanta ka qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre ayaa horay waxa si wada jira ugu iclaamiyay dawladda Soomaaliya iyo culimada Soomaaliyeed waana mid alla looga dalbanayo inuu dhibka khayr iyo barwaaqo ugu bedelo abaarta xilligan ku dhufatayna dalkeena waxaa lagu tilmaamaa inay la mid tahay tii ku dhufatay sanadihii 1992 iyo sanadkii 2011 dadka Soomaaliyeedna waa waajib saaran oo diin ah in ay garab istaagaan walaalahooda Soomaaliyeed ee abaartu waxyeelaysay
nasr bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho.